shuruudaha lagu soo xulay oo laguna xisaabtami doono iyo qaabkay u shaqayn doonaan oo aan rabo inay shacabka Soomaaliyeed maqlaan waxay tahay sida soo socota. qofka wasiirka noqonaya waa in aanay da'diisu ka yaraan 30 sano, waa in aqoontiisu gaarsiisan tahay heer jaamacadeed, waa inuu Soomaali yahay, aaminsan yahayna midnimada iyo madax-bannaanida ummadda Soomaaliyeed, waa inuu aqoon iyo khibrad u leeyahay maamulka iyo maareynta ku aadan shaqada uu dalbanayo, waa inuu ku sifoobay dhaqan anshax iyo asluub wanaag laguna yaqaan karti iyo hufnaan, waa inuusan ka mid ahayn xiriirna la lahayn ururada ku tilmaaman xagjirnimada, waa inuu ogolaado saxiixana in la hubiyo taariikh nololeedkiisa iyo khibraddiisa kadib markii loo magacaabo wasiirnimada, waa inuu la jaan qaadi karo kana turjumi karo isbeddelka ku yimaada rabitaanka shacabka, waa inuu diyaar u yahay kana go'an tahay ku dhaqanka iyo muujinta dawlad wanaag, isla xisaabtan, daahfurnaanta iyo la dagaalanka musuqmaasuqa, waa inuu ogolaadaa ama ay ogolaataa inuu buuxiyo shax la xiriirta caddaynta hantidiisa guurtada iyo midda maguurtada ah kadib marka loo magacaabo xilka, taasoo laga bilaabi doono ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda iyo madaxweynaha si loo ogaado xoolaha aan leenahay maantay iyo haddii loo baahdo mustaqbalka markaan xilka ka tagno. taasina waxay tahay qof waliba oo ka mid ah golaha wasiirada waxaa laga rabi doonaa shax noocaas. waxaa kaloo lagu soo dhaweyn doonaa haddii ilaahay yiraahdo qof walba oo xukuumadda ka mid noqda inuu ku shaqayn doono barnaamij cusub oo la bilaabay ka shaqayntiisa waa barnaamijka xukuumadda. waxaa kaloo laga saxiixi doonaa qoraal ku wajahan mas-uuliyadda iyo waajibaadka wasaarad walba. waxaa kaloo saxiixi doonaa wasiirka ama wasiiraddu waajibaadka qarinta xogta iyo sirta qaranka oo haddii ay caddaato in ay fashilantay ama ay bixiyaan sirta qaranka ay kalifi doonto inay ku waayaan shaqadooda. waxaa laga soo saxiixi doonaa wax la yidhaahdo habraaca ansixinta sifada shaqo oo ah qaab cusub oo dalkan looga shaqayn doono dhaqan shaqeedka. waxaa la eegi doonaa ay saxiixi doonaan nidaam isla xisaabtan shaqo oo cusub oo ah qaabkay u shaqeeyaan, waxa laga raba inay fuliyaan, bil walbana lagula xisaabtami doono, qofkii fulin waayana loo sheegi doono inuu waajibkiisii ka soo bixi waayey. sida aan markii hore sheegayna waxa ay caddayn doonaan hantida ay leeyihiin. intaa ka sokow waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan aan ugu bishaareeyo annagoo tix raacayna isbeddelkii ay codsadeen ummadda Soomaaliyeed anigoo gudanaya waajibaadkayga dastuuriga ah qodobkiisa 97 farqadiisa 3aad ee magacaabista xubnaha golaha wasiirada isla markaana waafajinaya qodobka 98aad shuruudaha xubinimada golaha wasiirada isla markaasna aan wada tashiyo ballaaran la sameeyay madaxweynaha xildhibaanada waddanka oo dhan, dumarka Soomaaliyeed, bulshada rayidka, dhalinyarada, culimada iyo dhammaan qaybaha kala duwan oo bulshada waxaan idin hor keenay ama ummadda Soomaaliyeed rabaa inaan hor keeno xukuumadda cusub. maadaama haddaba uu dalku maraya xaalad aad u adag oo abaaro ba'an ay jiraan kana jiraan qaybo ka mida dalka oo dadkii iyo dunyadiiba ay ku dhammaanayaan, isla markaasna aan horay u ballan qaaday inaan arrimaha abaaraha xallintooda mudnaan gaar ah siinayo, waxaan ku faraxsanahay inaan idinla wadaago inaan samaynay wasaarad u gaar ah si xal waara looga helo arrimahaas. wasaaraddaas oo anugu magac darnay wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka.